waa mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu la yaabka badnaa ee dunida soo mara. Halkani waxa kaaga muuqda ma aha dhagxaan, waa dad dhintay boqolaal sano ka hor. Waxa ku dhacday carrada Alle kadib markii ay sameeyeen arrin lagu tilmaamay faaxishadii ugu xumeyd. Waxa cajiib ah habka ay u geeriyoodeen. Hal mar ayaa qof waliba meeshii uu taagnaa uu ku geeriyooday kadib markii Alle uu ku halaagay fasaadkii ay sameynayeen. Waxay caado ka dhigteen dhaqamadii qowmuluudka inay wadooyinka isu fuulaan, in rag uu rag u tago, iyo xataa in xooluhu ay u galmoodaan. Waxaa intaa ka daran in fisqiga ay sameynayeen uu gaaray in wadooyinka la dhigo sawirada iyo farshaxanka rag iyo dumar oo qaaban oo isu tegaya, ilaa lagu tilmaamay magaaladii baashaalka waa Bambe oo ku taala koonfurta dalka Talyaaniga. Alle subxaanahu wa tacaala waxa uu ku halaagay habeen gudcur ah foolkaano ka qaraxday buur weyn oo magaalada dhinaceeda ku taalay, ilaa qof kasta uu daqiiqadaasi goobtii uu taagnaa ku geeriyoodo isagoona ku qalalay. Kadib musiibadaasi waxaa la waayay magaaladan oo 1600 oo sano kadib la soo helay iyadoo dadkii ay dhagxaan isu bedeleen. Haddaba dhacdadan oo lagu tilmaamay mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu la yaabka badnaa ayaan idiin soo gudbin doonaa. waa magaaladii Bambe ee koonfurta dalka Talyaaniga. Sawirkan waa ka hor inta ay musiibadu ka dhicin. Waxay ahayd magaalo ay isugu yimaadaan dadka jecel fasaadka iyo dhaqan xumada. Waxay caan ku ahayd in wadooyinka bilowga ah ee laga galo magaalada in lagu xardho sawirada dad iyo xayawaano isu galmoonaya. Haddii aad gudaha u sii gashana waxaad arkaysaa oo indhahaagu ay qabanayaan wadooyinka oo laba la isku saaran yahay. Waxay ahayd caado ka jirta magaaladan, qofna kama uusan fikirin waxa dhici kara. Laakiin magaaladan lagu tilmaamay magaaladii baashaalka oo ay kulmisay dadka ugu dhaqanka xun adduunka. Iyadoo sidaa ay tahay ayaa habeenada ka mid ah waxa dhacday sidii in qiyaamihii uu ka dhacay magaalada. Bambe waxaa dhinaceeda ahaa buur weyn oo lagu magacaabay Vesuvius. Buurtaasi waxay ka sarreysay dhammaan magaalada markii loo eego dhismayaashii ka dhisnaa berigaasi. Habeenkii ayaa mar kaliya waxaa buurta ka qarxay foolkaano aan horay loo arag abid. Qiyaca foolkaanadaasi oo sida dabaysha u socday ayaa qof kasta oo magaalada ku noolaa goobta uu joogay ku qalajiyay. Qiyacaasi waxa uu qariyay dhammaan magaaladii caanka ahayd ee Bambe. Muddo sanado ah waxaa la isweydiinayay magaaladaasi 1600 oo sano kadib oo ay aasneyd magaalada Bambe. Kadib waxaa la helay magaaladan iyadoo weli sidii ay u dhinteen ay u yaalaan dadkii magaalada oo dhagxaan noqday. Qof walba sidii uu u dhintay, haddii uu hadlayay, haddii uu ordayay iyo haddii uu faaxisho sameynayay. 1600 sano kadib waxaa loogu tagay markii la qoday magaalada meydadkooda oo dhagxaan ah, laakiin u yaal tabtii ay u geeriyoodeen. Waxay arrintaasi fajacay ku noqotay adduunka oo dhan, waxaana lagu tilmaamay inay ka mid tahay mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu la yaabka badnaa ee dunida soo mara. Arrinta ugu foosha xun waxay tahay rag iyo dumar iyagoo isu tegaya wadooyinka dhexdooda ay saacadu ku dhacday. Sidii ay ahaayeenna weli u muuqda iyagoo dhagxaan ah. Muddo kadib dowladda Talyaanigu waxay samaysay inay ururiso taariikhdii foosha xumeyd. Waxay samaysay goob ay ku sheegeen inay tahay taariikhi oo lagu ururiyay dadkii geeriyooday oo dhagxaan isu bedelay, iyagoo markaasi sameynaya dhaqamadii xumaa ee lagu yaqaanay. Waxay u bixisay goobtaasi Gabinetto Segreto. Waa goob ay u soo dalxiis tagaan dadka caalamka ku nool. Waxaan idinka raaligelinayaa sawirada oo aan idin tusi karin anshax ahaan. Waxay noqotay arrin lagu cibro qaato wixii ka dhacay magaalada Bambe. Carradii Alle ee lagu halaagay qowmuluud ayaa lagu halaagay qowmu Bambe. Dad badan oo aan muslim ahayn ayay sabab u noqotay dhacdadaasi inay xumaanta ka dheeraadaan. Qarniyo kadib, meelo badan oo ka mid ah adduunka waxaa hadda ka muuqanaya xumaantii lagu halaagay qoomkii Bambe. Haddaba haddii aad adigu sheekadani ka bogatay muuqaalka laagsaar oo sii sheergare si dad badan ay u gaarto. Haddii aad nagu cusub tahayna ku soo biir boggeena Xuseen Xaaji Xasan. mahadsanid.